الله وبركاته. بعد السلام دمان مرت شرفته معلمينتا مدحدا iyo intii qaybo wax ka tirsan salaamantiin salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. بعد السلام كدib eedeedan ka faraxsana intii maanta ka qayb gala ama kulan weynaha oo ama konton sano guuridii ku wareegstay luqadda farta maagishileysna maagana macna waa adduun weynaha sano guuridii waa konton sano after konton sano kadib ya qof walba luqadiis xusada macna ama xusid xuskana ma bilaabay asal hore qolooyinkan la rabo Bangladesh ama Pakistan madiyo la dagaalameen qoladii iyo markaas ka jeedeen luqadda 17 November يعني habilaawati ilaa يومنا هذا marka saas dartiya qolooyinkan Pakistan madiyo la dagaalamay يعني luqadda iyo isku xoojiyeen intii maalintii xusdan luqadda ilaa qof walba ama wax walba meelin taariikh ama intii lan taariikhay sida hadda macna asxaab rasuulillah waa taariikh wadankan Soomaaliya sidoo kale taariikh leh luqadda iyo sidoo kale taariikh leh macna marka wax walba meelita taariikh oo markaas la kamadayo intii maalintii la xuseeyay saas dartiya marka luqadana ama maanta adduunweynaha maadaama meel walba ku xusooy waa unin marka intii unan kana meel walba oo yaani la ku xusow ama hadii noqdo fadhi gobolka ama hadii noqdo fadhi meel qaybasho kala duwan intuu unan qaybaan xusna saas darteed marka maanta hani aadi intuu unan qayb kamid ah xusna 17 November 1999 ayba aqoonsaday sano guuradaas qolooyinka UNESCO ama qaramada midoobay iyo aqoonsadeen luqadda intii maalintii eete maalinta sano guurada oo ina ka beeganta marka 21 November marka saas dartiya intii unin maalintaan xusana luqadana waa wax walba yaani waa wax mar walba unan taagana waa intii luqadana xusanayta marka saas dartiya isina eedeedan ka maasantin inta dhalinyarada ka qayb gali iyo intii madaxda dhamaantiin iyo intii kor macna daafaha kala ka daawadaya eedeedan ka maasantin mar walba unan xusanan sanad walba because of luqad walba milita macna ibtidaa ama yaani bilaw tusaale luqadu milita alphabetical sida hadda ingiriiska ee up to z waa markii up to z la halay ya macna ya dhisinta luqadii tusaale markii saddex wal xada ka dhisanta waa letters xarfo tan kale xigto ah words ama erayo tan kale xigta sentences jumladu waa marka alphabetical madii la halay marka luqadii dhisanta macna ama kooy ama kaalay yani waa jumlad dhisan waa saas darteed marka luqadda waa waxyaabaha aan ku miimsan qofka bini'aadamka la iska fahmi karo macna luqad walba meelita luqad oo iyo macna angaar ah saas darteed marka madii intaas ka gudubna qaasatan fartaana mayga ama afkaana ayo oo maanta ka beegan xuskiis intuu nin maalintaan xusana iyada taasna ka been ciidul lisaan al umma macna luqadana hooy intii maalintaan uu xusana waa waajib oo dastuuri ah mar walba intii istaagnaayta ya mar walba ka baahan hadii dhalinyarada reer koonfur galbeed iyo hadii KGS intibeynaba intii mar walba istaagna luqadana hormarina oo yaani bulshadeenta intii wala qaybsana intii baraha bulshada galiyo kor hadii xitaa dhalinyaradii oo yaani baraha bulshada kullee eedeedan isticmaala intii website-una ka darso kor hatta luqadan because of maanta farta Soomaaliga si guud hadii tan ka hadala maanta ma yaani kulan oo akademiyada ka qayb gali yaani sometimes waxyaabahan xogaa qiirada galiya jiraan oo ah computerka maanta dawalka qoraasa irir badan hasaare oo farta Soomaaliga irkas means computerka ma aqoonsiya yaani luqadda ama farta lagu qoro ma aqoonsina amal waa hadii sometimes aad dalbata sida farta ama size-ka cabirka mid doorata mikiran dhowr luqadaha kan safe sida hadda toggle case-ka ama upper case-ka ama lower case-ka intaba saas darteed marka yaani unin loo rabo hadii ay tiyaayeen ama hadii baraha bulshada eed unan ka feelana
intii fadhana isweydiina sida luqadan han ka kordhiyo korna fartaana Soomaaliga ama maayga oo ka aqoonsada computerka maanta di xaraf walba qorto ir badan kan saareen sadad telefoonada hadda smartphone kuna haysan assalaamu alaykum baduna qoraan ir badan saareen markii iradaas يعني أني بدل كرنا ما ينك بدل كرنا أنتوا أن كان معنا مرول بحسشة حكى قيب قلنا صدرتي هذا بدنا مدة كقراص السلام عليكم السلام عليكم مدة كعلل يا أصل ميموري أحان حفظية مدة ميموري أحان حفظي دن السلام عليكم مدة بلاد أنت كلو سهزبوية صوت محيطها مركا يعني سي بي أما سنترال بروسيس يونت كبير مجارسين ومعنا صدرتي يعني مرول بقى ما تكرير كذا كصوب يعني لقب سيدن هدو مركا هدي فرتها المرجلي أوتوماتيك الفصل قاعدة مركا أستاذ عبد النور سيون إذا أنت دالها فرتانا مايجا أما لقد دانا أيو أنت مرول بأنه كورن قاد ونين نوفذ تيجي كلام وحول بعد كفكرة ما كفكرة كديو محاتري بدرس مسمعها يعني مركز درتي ما دام فكردي وانا كسرنا فرتمايا وانت مركون قرال شيء يوم عنا هذا الشيء كتاكيدنا ما انت دي شنقفض او محاتري هدي من السلوكويتا اما هالقفض محاتري من السلوكويتا شنقفض او ريمين من السلوكويتا يعني كمحاتري كدولنا ومع ذلك عصري يوم عصري سماه ون اللقطان مرول بالليزي كدينا مرك صدرتي مرك اللقطان ليزي كدينا دلنيردان ان ودا كانين انا اس جروب اهان حتى انت بروتوكول اهان استاغنين لقطان سيدو استاجيفن عبد النور سين استاذ عبد النور سين انن كالمي فن دين walba ka kaalmay karo hadii baraha bulshada naga fadhi iyo hadii kalaba maanta meelo aad ka kaalmay karto meelan daanka hoosayta meeba kamid ah magaaga bis inta tagayur ku sameeyay bis oo ku qorata bis yaani maayga fartamaaga bis ku qorata intaas ba xataa waxa waa dhiirigelin weyn waay mar walba aan istaagnin luqadana fartamaaga assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh